Assalaamu calaykum. Xalqadeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa waxaa jira dad badan oo leh hadaf iyo hami una ordaya siday u rumayn lahaayeen. Kadib markay hadafkooda gaari waayaan ama uu ku dheeraado waqtigay ku gaari lahaayeen, waxay qaadaan niyad jab badan, murugo, waxayna ilaawaan nimcada Ilaahay uu siiyey ee tirada badan. Xalqada maanta waxay noo soo diyaarisay Dr. Shabaaq Buubaal oo ah dhakhtar iyo weliba dhiirigeliye nololeed. Soo dhawow Dr. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Su-aasha koowaad aan ku weydiinaya Dr. waxa weeyaan ma hadafkayga iyo hamiga aan leeyahay baan u baahanahay inaan gaaro si aan farxad u dareemo, mise aniga oon hadafkayga iyo hamigayga gaadhin oo weli u ordaya una rafaadaya ayaan haddana dareemaa farxad iyo deganaansho. waad mahadsantahay. su-aalkan jawaabkiisu waxa weeyaan dadka inta fara badan waxay aaminsan yihiin waa inaan hadafkayga muraadkayga iyo riyadayda nololeed inaan gaadho, markaasaan dareemayaa farxad oo aan degayaa oo aan qaboobayan xasiloonina aan dareemayaa. laakiin ilaahay adduunka sidaa mu abuurin. marka ugu horeysa waa inaad mahadnaq aad dareentid, farxad ay noloshaadu ay ku jirto, deganaasho inaad dareentid, ilaahayna ugu mahadnaqdid nimcadihiisan fara badan aanan tirin karin. kabacdi markaad dareenkaa wacan aad dareentid ay ku imanaysaa natiijadu ama hadafkaagu ama riyadaadu ay ku imanaysaa. sidaan ugu qalmaya hadaf wacan iyo riyo wacan san u qalmaya inaan helo anigoo markii horeba raalli ka ahayn noloshan aan ku noolayo waaqiciga ka cadhaysan oo aanan ku faraxsanayn, siday iigu imanaysaa nimcadaha ilaahay. natiijadaha waaweyn iyo hadafka weyn uma timaado dadka ka cadhaysan waaqicooda iyo noloshooda, ilaahay ugu mahadnaqaynin nimcadihiisan fara badan ee ilaahay raalli ka ahayn. laga yaabaa inaad hami weyn aad leedayd u ordaysid hamigaas iyo hadafkaas aad doonaysid inaad gaadhid, adigoo doonay inaad gaadhid gurigii weynaa iyo businesskaad ku riyoonaysay iyo guurkii wacnaa iyo dhoofkii ama safarkii. haddana waa inaad markasta nimcadaha farabadan ilaahay ku siiyey aad xasuusatid, aad ilaahay ugu mahadnaqdid nimcadihiisa farabadan. ilaahay subxaana watacaala wuxuu idhi bismi illaahi raxmaani raxiim acmaluu aala daa'uuda shukran waqaliilu min cibaadiya shakuur. sadaqa allahu alcadiim. ilaahay wuxuu idhi u shaqaysta xamdiga iyo mahadnaqu maaha inaad afka ka odhanaysid, maaha. shaqo u baahan yahay iyo dadaal iyo go-aan, adigoo noloshoo dhan ay kaasoo hortaagan tahay oo hadafkaaga aana gaadhin oo daalan oo rafaadsan, haddana waa inay kuu muuqato nimcadahan farabadan ilaahay ku siiyey ee ku barbartaala, oo hadafkan aad raadinaysid aad u ordaysid yaanu kaa qarinin nimcadahan farabadan ilaahay uu ku siiyey. ilaahu subxaana watacaala wuxuu idhi lain shakartum la usiidanakum. wuxuu idhi haddaad ii mahadnaqdaan oo nimcadahayga aragtaan waan idiin kordhinayaa khayrka iyo arsaaqada iyo wanaaga. Su-aasha labaad aan ku weydiinaya Dr. waxay tahay sideen u dareemi karaa nabadgelyo iyo farxad anigoo wax badan oon doonayo noloshayda ka maqan yihiin oo aanan weliba arkin, yacni sidee baan haddana deganaansho iyo xasilooni badan u dareemi karaa? su-aalkan jawaabkeed waxa weeyaan xataa hadduu wadcigaagu uu cakiran yahay ama duruuftaadu ay cakiran tahay, laga yaaba inay duruuftaada caafimaad ay xumto aad bogtid, laga yaaba inaad guur xum aad ku jirtid waqtigan, laga yaaba shaqadaad ku jirta amaad ka shaqaynaysa inaan ahayn shaqadii ku raali gelinaysay ee aad doonaysay, laga yaaba inaad ku nooshay guri wada suno oo dadku isximinayaan ay isnacab yihiin, laga yaaba inaad bishoo dhan aad shaqaynaysid haddana aakhirka shahriga dayn aad qaadanaysid oo lacagtu kaa dhammaanayso. haddana iyadoo duruufta ay jirto waa inaad haddana aad xasuusatid nimcada ilaahay ee fara badan ee la tarin karin ee ku barbartaala. waa inaanay rajadu kaa lumin. taasuna waxay u baahantahay jihaad xaqiiqiya, jihaad dhababa u baahantahay, jihaadka nafsiga inaad naftaada dagaal la gashid. waa in iyadoo rajadu ay luntay oo noloshu mugdi tahay oo farxadda ay ka maqan tahay oo calaamadihii farajku aanay muuqanin, haddana waa inaad hadafkaad u ordaysid aad u rafaadaysid, waa inuu ku hor yaallo oo aad arkaysid uu kuu muuqdo, aad aaminsan tahay, aad garanaysid inuu ku imanayo. isla markaana nimcada ilaahay iyo nimcadahan fara badan ku barbartaalo ilaahay ku siiyey waa inaanad ilaawin markasta ilaahay aad ugu mahadnaqdid. nimcadaha sida
cadceeda, jawga wacan, roobka, nabadgelyada, guriga wacanad ku nooshay, cuntada macaan aad cunaysid, waalidkaa ku barbaryaala, familiga, walaalaha, waxaasoo dhan inaad xasuusatid. ilaahay subxaana watacaala suurat alcankabuut wuxuu yidhi waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana. sadaqa allahu alcadiim. taas waa suurad maka kusoo degtay, waqtigaana dagaal muu jirin. marka jihaadkan ilaahay uu ka hadlay waxa weeyaan maaha jihaadka sayfta la qaadanaya cadowga lala dagaalamayo, waa jihaadka cadowga naftaada ku dhex jira aad la dagaalamaysid, aad naftaada ka adkaanaysid iyo shaydaanka, oo aad aaminaysid adigu wax kasta ay xumto rajadiina ay luntay, aad aamintid inuu maalin qurux badan kuu soo socoto, ilaahay aanu ku luminaynin, duruuftu isbedelayso, wanaag uu kuu soo socdo, oo nimcada ilaahayna markasta ilaahay aad ugu mahadnaqdid, aad tidhaahid alxamdu lilaahi calaa kulli xaal. su-aasha saddexaad doctor waxaa weeye mid ka mida waxyaabaha ugu xun waxa weeye inuu qofku la qabsado nimcooyinka eebe, una arko markasta wax waajiba inuu helo, oo weliba nimcooyinka maalin kasta aynu aragno ee maalin kasta inagu soo noqnoqonaya sida cadceeda, biyaha, nabadgelyada, caafimaadka, iyo in labadiina waalid nool yihiin aad u aragtid wax waajiba oo qiimaheeda aana dareemin, sababtoo ah waa wax kugu soo noqnoqday, waana waxa ugu xun markaad la qabsato wax caado ku noqday. haddaba arrinkaas maxaa tusaale naga siin kartaa doctor Sibaaq Buubaal? runtii aad bay muhiim tahay bini aadamku inuu dareemo nimcadahan maalin kasta nagu soo noqnoqonaysa ee qeyb ka mida nolosheena noqotay, sida nimcada biyaha, nabadgelyada, dalka wacan, cuntada macaan ilaahayna siiyey, roobka, guriga wacan ee dugsoonad ku nooshahay, waalidka, familiga. taas dabcan haddaad u fiirsatid suurad quraysh aad akhridid, suuradda waxaanu malaynay inta badan dadku inay qeybsan yihiin oo iskuulka ayaan ku xafidnay, laakiin anigu horta runtii bari dhawatan tafsiirkeeda aan ogaaday. markaan ogaadayna runtii aad baan uga naxay. suuraddaas waa suurad ka kooban 4 aayadood. aayadda koobaad waxa weeyaan liilaafi quraysh. liilaafi quraysh waxa weeyaan nimcadda lala qabsanayo ayuu ilaahay ka sheekeynayaa. taasuna waxay kusoo degtay reer quraysh ayay kusoo degtay oo nimcadaha ilaahay la qabsaday oo u qaatay inay wax caadiya tahay oo waajib ay tahay oo aana u fiirsanaynin oo aan ilaahay ugu mahadnaqayn, waana dhibaato qof kasta imka dad fara badan haysata. ilaahay wuxuu yidhi waqaliilu min cibaadi shakuur, dadka mahadnaqaya xamdiga garanaya way yaryiin buu ilaahay yidhi. sababta usoo degtay liilaafi quraysh sheeko aad u cajiibay leedahay. berigii hore ayaamil jaahiliya ayaa reer quraysh waxaa haystay faqar iyo gaajo iyo baahi badan baa haysatay, iyagoo dalkuna uu yahay dal saxaaro oo dhir aanay badan aanay ka bixin, biyana lahayn, roobkuna aanu usoo degin. ay waxay ugu leeyihiin faqar iyo gaajo daraadeed, iyagoo dadkaasuna dad cizad nafs loo kibir badan bay ahaayeen oo nacabina dadka dawarsadaan ama wuxuu weydiistaan, ayaa intuu ninku kaxaysto reerkiisa iyo caruurtiisa ayaa khaymad taandho ayuu ka dhisan jiray saxaaraha. xaggaasaa lagu jiray taandhadaas ilaa inta haraad iyo gaajo loo dhinto. dhaqankan waxaa la odhan jiray al-ictifaar. dhaqankaasu markuu dadkii uu ku farabatay ayaa qabiil layidhaaha bani makhzuum ayaa gaajo daraadeed u dhiman gaadhay. qaar fara badana dhaqankaasi sameeyeen. waxaa warkoodii u gaadhay haashim binu cabdi munaaf, wuxuu ahaa tujaarka ugu waaweyn quraysh beriga. dhaqankan iyo caadadan iyo fakhrigan iyo jahligan ayuu aada uga xumaaday. wuxuu idhi antum axdathtum caadatan tudalluun, wuxuu ku idhi waxaa la timaadeen dadkiisa, wuxuu ku yidhi waxaa la timaadeen dhaqan cusub oo dadku iyo carabtu idinku caayayso aroorta, idinku ahli beytillaah ah oo dadku idiin imanayso oo xajka loo imanayo ayaa dhaqankan la timaadeen xum. wuxuu sameeyey qabiiladihii oo dhan intuu u yeedhay ayuu kala qaybiyey. qabiil kasta ninkii ugu lacagta badnaa ee ganacsatada ayuu ku amray inuu kuwa danyarta uu lacagtiisa ula qaybsado waxuu siiyo. hadhowtana wuxuu u sameeyey, wuxuu baray ganacsi sanadkii 2 jeer la baxayo, marna loo baxayo bilaadi shaam, marna loo baxayo yemen, oo marna khudradda iyo furuujska laga doonayo, dhirta dharka, xariirta iyo cadarka iyo uunsiga waxaa laga doonayo. markaasaa khayrkii yemen iyo shaamba maka isugu dheximi, dadkii baa dhargayo oo qoyay. markaasaa hadhowtana faqrigii iyo ictifaarkii iyo caadada xubna saasay ku baaba'day.
laakiin reer quraysh nimcadan ilaahay uu siiyey xaalkoodan bedelme ilaahay gaajadii iyo haraadkii uu ka biiyey baqdintii laga baqayay arsaaqada marka yaraatan ilaahay uu ka baabiyey ay ilaahay ay garan waayeen inay ugu mahadnaqaan markaasuu ilaahay soo dejiyey suuradda quraysh uu yidhi falyacbuduu rabba hada albeyt alladii atcamahum min juuc wa aamanahum min khawf ha caabudaan rabbiga kacbadda ilaahay gaajada ka biyey haraadka iyo baqdintaba ka kaxeeyey marka aad bay u muhiim u tahay inuu bini aadamku xasuusto nimcadahan farabadan aanan la tirin karin ina barbar taala iyo nimcadahan maalin kasta inugu soo noqnoqonaysa ee aanan u fiirsanayn aanu dareemin inay waajib tahay xataa hadduu hadafkaagu uu kaa fogiyo aanad weli aanad gaadhin markasta nimcadda ilaahay waa inaad xasuusatid ilaahay ugu mahadnaqdid ugu dambeyn gebagabada waa maxay fariinta aad dadka u diraysaa maxayna muhiim tahay in nimcada rabbi mar kasta la xasuusto looguna mahadnaqo gabagabada waxaan odhan lahaa aad bay muhiim u tahay inaan dhaqan iyo caadad aan ka dhigano caruurteena barno inaan markasna aan xasuusano nimcadaha ilaahay uuna siiyey aana tiro lahayn subax kasta markaad soo kacdid waxa ugu horeeya aad xasuusanaysaa waxa weeyaan inaad subax cusub iyo fursad cusub ilaahay ku siiyo inaad caabudid oo dembigaaga aad masaxdid aad ilaahay u dhowaatid taas baa ugu qaalisan inaad maalin kasta aad xasuusatid markaa nimcadaha ilaahay aan xasuusano oo markastana aan xasuusano reer Gaza waxa ku dhacay iyagoo nimcad ku nool ayaa guryahoodii laga burburiyey amnigoodii u baaba'ay reerahoodii la xasuuqay gaajo iyo haraad ay heleen ilaahay duruuftaha ka saare oo mar qura noloshooda ay isbedeshay marka guriga wacan iyo cuntada wacan aan cunayno iyo guriga dugsoon iyo waalidka nimcadahaas oo aan xasuusano oo markasta afkeena iyo qalbigeena aan ka niraahno الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهد سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.